السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن هبون ذلكين بداوضي المركز تونغالا سعوتان halkan waa bulsha TV xaruntiisa koobaad ee kuleenahay magaalada Booramo waxaan soo gaarnay hadii aan hawada inii soo marin jirnay warbixin naga soo gaadhay dalka iyo dibadiisaba wararka habeenkan caawa soo timintooda waxay nagu sugan aniga Cabdiraxmaan Cali Said xidiga qodobada wararkeena ugu door karoolana waxaa kamid ah siyaasi Umar Daahir Cilmi oo kamid ah xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa baaq dheer u diray bulshada ku dhaqan gobolada Awdal iyo Salan inay qaataan kaarka codbixinta qoys tabaaraysan oo ku nool magaalada Booramo ee xarunta gobolka Awdal ayaa maanta telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV u koorgaray xaaladooda nololeed wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay in aqoonta saxaafadda kor loo qaadi doono dawada qodobadaasi waa kuwa wararkeena habeenkan caawa ugu door karool qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxa ku maqli doontiin warkeena balse ku soo dhawaada qadar xayeysiisa haddii ilmahaagii awlaadaadu xanuun kaaga dhaco hamurugoon ee orod oo soo dhawey khabiir u adeegaya agtaada joogay bishaaraysta oo u taga ilmaha baadhistiisii inuu bogsadaa dane orod oo u gee dhakhtarad hodan waa dhakhtarad ku takhasustay daweynta iyo daryeelka carruurta xarunteedu waa Guuleed Pediatric Clinic adeegyada xarunta Guuleed Pediatric Clinic ay idin qabanayso waxaa kamid ah xog waraysi la yeelanayo qofka bukaanka shaybaadh casri ah oo goobtaasi kugu diyaar iyo dawo tayo lagaga keenay dalka dibadiisa sidoo kale waxaynaan meesha aan ka maqnayn in dhakhtarad hodan ay talooyin caafimaad ay siiso hooyooyinka carruurta dhalay haddaba waqtiyada ay fadhiisato dhakhtarad hodan Saleebaan Axmed Guuleed ayaa waxay tahay maalmaha Sabtida ilaa iyo Khamiista saacadu markay tahay 4 galabnimo ilaa iyo 9 habeenimo Guuleed Pediatric Clinic waxa uu ku yaalaa magaalada Booramo xarunta gobolka Awdal gaar ahaan waxa uu midigta ka xiga masjidka qadiimiga ee Harawa haddaba wixii faahfaahintaasi dheeriya waxaad kala xidhiidhaan ciwaanada iyo telefoonada shaashada ka muuqda bulshada Booramo banaanteenu waa Guuleed Pediatric Clinic iyo inaad gaadhaan dhakhtarad hodan Saleebaan Axmed Guuleed markale kulan wanaagsan kuna soo dhawaada warkii oo fidsan siyaasi Umar Daahir Cilmi oo kamid ah xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa baaq dheer u diray bulshada ku dhaqan gobolada Awdal iyo Salan inay qaataan kaarka codbixinta siyaasi Umar Daahir Cilmi oo kamid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga UCID ee gobolkani Awdal oo maanta waraysi gaar ah u siiyay telefishinka madaxa bannaan Bulsha TV Booramo ayaa waxa uu horeyntii uu baaq dheer u diray bulshada kala duwan ee ku nool gobolada Awdal iyo Salan inay u diyaar garoobaan sidii ay u qaadan lahaayeen kaarka codbixinta oo bisha 7 ee sanadkan laga bilaabi doono guud ahaanba dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo waxa lagu jiray diiwaangelinta codbixinta oo aan dadka ka qarsoonay goorma la qabanaya iyadoo xeerku dhigay muddo 6 bilooda gudaheed in lagu qabto inta doorashadu dhacay waxa iska jira waxyaabo dhinaca farsamada ah oo dib u dhigay maaragtay waqtigii la qaban lahaa diiwaangelinta codbixinta tii markii xisbiyada qaranka isla eegeen komishanka waxa la isla gartay in timeline-kii la sameeyo isla markaana ay July dabayaaqadeeda ay bilaabato diiwaangelintii codbixinta sidaa darteed waxaan ku wacyigelinayaa dadka ku dhaqan gobolada Awdal iyo Salan diiwaangelintaasi waa si aynu ku dooran lahayn baarlamaan saxa ama madaxweyne ku-xigeen aynu ku helo isbedel inagoo og tabashooyinka badan aynu qabno sidaa darteed waxaan ku wacyigelinayaa dadweynaha reer Awdal iyo Salan inay ka qayb qaataan diiwaangelinta codbixinta Umar waxa tahay mas'uul ka tirsan xisbiga UCID dhawaan ay ahayd markii isbahaysiga mucaaradka oo xisbiyada UCID iyo wadan ay ku jiraan ay ku dhawaaqeen in 26 Juun haday doorashadu dhici weydo ay ku dhawaaqi doonaan wadatashi guud oo qaranka sidoo kale maanta waxaad bulshada ugu baaqaysaa inay ka qayb qaataan diiwaangelinta codbixiyaasha marka ka fikirhaantan marka dhinaca laga eego
waxa u muuqata inaad u taageerayso in muddo kordhinta loo sameeyo xukuumadda maadaama bulshadu ugu baaqayso in kaarka codbixinta la qaato arrintaa iyada ma adu maad ka fikir duwan tahay isbahaysiga mucaaradka uu ku dhawaaqay in 16 Juun wixii ka dambeeya ay xukuumaddu ay talada dalka doorashadu inay muddada ku qabsato waa waajib dastuuri doorasho sax ah waxay ku heli karnaa diiwaangelin codbixinta oo sax ah markaynu helo ayuu marka taasi wixii doorashada dib u dhigi karaa wuxuu noqonayaa sida dastuurka ku cad qodobka 24 farqadiisa saddexaad waxyaabaha ku xusan oo ah masiibooyin dabiici ah iyo aafooyin dagaalo sokeeyo la mid ah tiimo muuqato kamana hadlayo maanta muddo kordhin doorasho iyo muddo dhigid doorasho kama hadlayo waxaan uu ka hadlayaa waxa weeye aanu isla garanay komishanka sidii loo qaban lahaa diiwaangelin taam muddo kordhinta iyo wixiga iyo doorashada waxa weeye hay'ado kale ku shaqeeya anagu lama kordhin karno xukuumadda ma kordhin karto cid baa maaragtay marjaceeda loola noqonayaa wixii dastuurka ku xusan wixii ka baxsan ee farsamo ahaana ee loo arko qarankan inuu xal ku gaarayana waa halkeeda isbahaysiga go'aankiisa loo wasiisay waxaan maanta u kuurgalnay xaaladda qoys tabaaleysan oo ku nool magaalada Boorama qoyskan ayaa 24 saac gudahood la sheegay inay kaga dhinteen 2 ubada halka hal ilmo oo kalena hadda uu ku jiro dhakhtarka weyn ee Al-Hayaat ee magaalada Boorama wala warkaas la xidhiidhana aanu talaabno waxaanu maanta u kuurgalnay xaaladda ay ku sugan yihiin qoys dhawaan ay ku dhacday masiibo weyntaasi oo ahayd in 24 saac gudahood ay kaga dhinteen 2 ubada halka ilmo yar oo kalena waqti xaadirkan uu ku jiro isbitaalka Al-Hayaat ee magaalada Boorama waxa xusin mudan in qoyskan aanay haysan wax dhaqaale oo ay ku dabaraan ilmaha yar ee haatan ka xanuunsanaya ee ku jira isbitaalka Al-Hayaat haddaba walaalaha muxsiniinta ee jecel ka qayb qaadashada taakuleynta khayriga ee dadka tabaaleysan waxaanu wargelinaynaa inay ka soo qayb qaataan caawinta qoyskani aabaha iyo hooyada qoyska oo ka warbixinaya xaaladooda waxa ay yiraahdeen dhibaato ayaa dhacday waxay markaa ahaayeen 2 wiil iyo gabadh ayaan markaa anigu dambaaliyo lahaa labadii wiil iyo gabadhii waxmad aad u badan ayaa ku dhacday guriguna wuxuu ahaa aan deganahay guri yar oo bas ah oo cariisha oo buuna aadna u kulul aad isna u kulul oo aad u kulul buu ahaa markaa xumadii iyo kulaylkii guriga u bixinayay ayaa hawada ka sii baxay markaasaan inanka ku wareegay Axmed ee jaarkayga ah markaasaan ku iri warniyow inamadii waan garan lahay tacbaan bay sii noqdeen sideen idhaahdaa markaasuu igu yiri waxaad geysaa farmasiga lacag buu yidhi waan qaaday waxaan geeyey farmasiga suuqa ayaan geeyey markaa xanuunkii kolka irbadihii lagu turqay uu ku sii siiyay haddana markaasaan ku iri odaygii sidaan idhaha cabdinafaqaan ku iri sidaan idhaha waa kan uu ku sii siyaaday dhakhtarka ayuu ugu gudbiyey maalintii saddexaad dhakhtarka sidaa kolkaan u geeyey ayaa inamadii markaa inankii u horreeyey ka baxday waxaan leeyahay maanta kol haddii ilaahay tan noo soo badbaadiyey dadka Somaliland bulshada ah waxaan ka wada codsanaynaa in noloshii nolol ka bedelan ay bal inta karaankooga ah ay nugla dadaalaan oo ay noloshii kulaylkii iyo dhibtii booladii iyo dhibtii aan ku jirin bal naga caawiyo naga gacan qabtaan ka codsanaynaa oo ay nolosha nolol ka fiican ay gaarsiiyaan haddii ilaahay laga helo dhibaatadaas isoo qabsatay maalintii jimce 2 wiilan lahaa ilaahay baa wax leh 2 wiil xumadaa kulay kaga dhacday xumadii ka bacdina farmasi geeyey farmasigii kabacdi 3 cisho ka turqnay 3 cisho kadib dhakhtarka u gudbinay maalintii khamiiseed maalintii marka 5 meelaha ahayd irbada loo isku dadaalay marka meelaha maqrib ahayd kii roona ka baxday kabacdi kii kale maalintii jimcaad meelaha 2 isna ka baxday
haddaba walaalaha muslimiinta waxaan wargelinaynaa ciddii ka qayb qaadanaysa caawinta qoyskani tabaalaysan waxa aad kala xidhiidhin taleefanada shaashada idinka muuqda. wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdilaahi Daahir Cukuse ayaa sheegay in aqoonta saxaafadda kor loo qaadi doono. faalada warkaasina waxa magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland nooga soo diray wariyaalkaasi noogu sugan. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Somaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa sheegay in ay iska kaashanayaan wasaaradda warfaafinta iyo waliba dalada ay ku bohoobeen ururada aan dawliga ahayn ee Sansaf sidii loo tayeyn lahaa aqoonta saxaafadda inta ka horeysa doorashooyinka. Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse oo maanta ka hadlayay munaasabad xil wareejin ah oo lagu qabtay wasaaradda warfaafinta xilka kala wareegayeen wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta iyo waliba wasiir ku-xigeenka cusub ee loo soo magacaabay. Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri hal shay oo aan ilahayn jirina imika saxaafadda maalmaha waaban ku arkayo berigii hore saxaafaddu ceeb may lahaan jirin fara badan oo aan ahayn inay tababaro badan u baahan tahay oo aan ahayn inay iskaga daydeen alloo ciiro beri hore galay oo ah in warkoodkaa loo yaqaano hadalka qalabsan laakiin imika waxaaba ku soo kordhay inay iyagoo qolo ashiraan qaar qolo abaabashiraya dabadeedna hal qof baabay ku duulayaan mar qura waaba isku qolo ka jariidada iyo ka website-ka iyo ka kale iyagoo reerabay soo shireen waa wax dhacay maalin dhowbaan shaaca ka qaadi doonaa insha allah waanu sheegi doonaa marka ay ka noqon waayaan marka ay xushoon waayaan ee ay noqon waayaan suxufigu khaladka wuxuu geli jiray isagoo keligiya isagoo reero weligii maan arag suxufi kala maanta koo marka taasina meel bay ka dhacdaa kollayna saxaafadii hore iyo saxaafadda dambe kee doontaba ha ahaatee waa sumad waana wax maqan waana wax dadku wada arkayo imika tusaale fiican baaban idiin sheegi doonaa laakiin maanta waa dib baan dhiganayaa sidaan markii hore u sheegay mar baynu ku dhawaaqi doonaa in saxaafadda qulan ka hadlayno laakiin waxaan doonayaa inaan halka raaciyo arrin kaloo muhiima maalin dhaweydna waan ka hadlayay barnaamijkaa waxaanu ka wada shaqaynaynaa Sansaf waxaanu ka wada shaqaynaynaa kaadriyada nabadda waxaanu ka wada shaqaynaynaa Solja waxaan doonaynaa inaanu ka wada shaqayno warbaahinta dowladda iyo warbaahinta madaxa bannaan arrintaasi waxay tahay waxaynu galnay doorashooyinka aynu galnay waqtiyadii doorashooyinkii hore aynu geli jirnay oo dhan saamaynta ugu weyn xilliyada doorashada berigii hore waxaa loo qaban kari waayi jiray waa sagaashameeyadii doorashooyinka waxay ahayd inanka qoriga sitaa badnaa inankaasaan si meel laga maro la heli jirin oo qofka footaynayo qorig sitaa garab socday waynu ka bogsanay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta qofkii footaynayo waxa garab socda mid qalin sita oo mikrofon sita oo suxufiya ninkaas suxufiga ahi saamayn buu mujtamaca ku leeyahay saamayntaa uu mujtamaca ku leeyahay baynu doonaynaa inay mid khayr la noqoto daawadeen qodobada kale gobolada iyo degmooyinka dalka idinka haynana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah bulshada Somaliland ku dhaqan gaar ahaan kuwa danyarta jilicsan ee caasimadda Hargeysa ayaa waxay ka mid yihiin qoysaska aan haysan meelo ay galaan agabkii ay ka sameysteen hooy ay degaan waxa uu ka yaalaa banaanka telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV ayaa dadweynahan booqday waxaanay cabasho ka muujiyeen arrintan naxdinta ay haysata waxay ku sifeeyeen dhibaatadan la soo diristay in goobtii ay deganaayeen wada laga dhigay meel kale oo ay degaan aan loo qorsheyn sida darteedna ay degan yihiin meel bannaan ah iyagoo baaq cod dheerna u diray xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya hogaamiyaha ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo maamulka dowladda hoose caasimadda Hargeysa waxa weeyaan waxaana ka dambeeyay maayirka iyo xildhibaanada iyagana meesha ka koran natiijay imkana aan u fadhinay imkana waxa lagu qaaday fuliin meel ka timaadeen garow haba yaratee imkana waxaan dhibaato aan yarayn baan haysata dibadda seexana wadada 150 kala caruurtii anagu waan ku qaadnay marka waxa weey dawladda sharafta waxaan ku codsanaynaa ama maayirka
lagu soo fuliyo tan oo kale inuu tan wax ka bedelo oo wax noo qabto insha Allah bidmillah xidhan waan idin qaadana meel baan idin geynayna anaguna si fiican uga urursanay cid noo timi ma jirto cid maxay ahaydna soo eegtay ma jirto kadib waxaan ku hor urursanay ninka beerta leh oo inuu boobo la dhaaqdo markaan ku hor urursanay ninkii laga guura buuli waaya dawladda noo ballan qaadeen si baan ka bacdi markaan ku nirina sug iyaga firin soo sameeyay guriyihii oo caruurta agoonta ku waxaan dad agoon jira dad waxa jira curyaamin oo macaan loo lugaha la gooyay dad maatiyo maxay dan yara weeyaan haddii qofku meel haysto iska tagina Soomaha waxa weeyaan markii aan waxba loo qabanin intaan ay degan 2 sano caruurtii aan maxay markaa xaamiladooda waa kunta soconaya dhulka yaacay weeyaan imika waxa weeyaan markaa dadkii cagaf labaad ayaa hadana u timi oo gashay dawladda soo kala cadaalad ma sharafdare inuu maatidiisa hoos eego oo dawladdiisa cadaalad ku shaqeeyo oo dadkiisa maatidiisa eego waxaan nahay dadkii boqoliyo ku takayaalay waa la burburiyaa aqoomaan leenahay dad sircibaan nahay dad dhibaataysan baan nahay waxaan doonaynaa maayirku inuu hoos noo eego oo dadka cadaalad ku shaqeeyo oo maatidiisa ay aqoomaan ay darbijiibka aqoomaan oo soo eegan doonaynaa waxaan dawladda hoosaan u tagnay waxaan ku waa la naxriir xarig baa loogu daray waa la taxaabay waxaan doonaynaa niman baan fangareeyay lacag weyn u fangareeyeen waxaan ku dawladdu cadaalad hoos loo eego daawada qodobada kale noo soo socdana warkeena waxaa ka mid ah duufaan lagu magac daray Bam ayaa ku dhufatay jasiiradaha la isku yiraahdo Vanuatu balse ku soo dhawaada inta warbixinta u gelin qadar yar oo ida waxa magaalada Boorama lagaaga furay farmasi cusub oo uu kuugu diyaar yahay dhakhtar Baakistaniya farmasigaasi oo lagu magacaabo Advanced Medical Center waxana uu doctorkan Baakistaniga ah uu daweyn doonaa xanuunada ku dhaca madaxa oo ay ka mid yihiin suuxdinta neerfiska dhiikarka dhimirka walwalka iyo roomad xanuunada ku dhaca maqaarka xanuunada ku dhaca sanbabada hurdo la'aan fikirka walwalka xanuunada ku dhaca wadna xanuunka xanuunada ku dhaca caloosha iyo mindhicirada haddaba aan ku tilmaamay dhakhtarkan Baakistaniga waxa goobtiisa caafimaad ay ka soo horjeedaa dukaanka ina waraabe haddaba dhakhtarku waxa uu shaqeeyaa maalinta jimcaha labada galiba haddaba diiwaangelintu waxay ka socotaa farmasiga Advanced Medical Center sabtida ilaa iyo khamiista haddaba wixii faahfaahinaya intaasi dheeraad ah waxaad kala soo xiriiri kartaan telefoonada iyo ciwaanada shaashada idinka muuqda daawadayaal bartaan nagala socotiin waa telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV xaruntiisa koobaad ee magaalada Boorama waxaana barta kaga jirnaa wararkii oo inagu talagalay haatan u diyaar galooba qodobadan dibadda idinka hayo 4 sano la soo dhaafay waxa la sheegay in xabsiyada dalka Syria in ka badan 13,000 oo qof lagu dilay dadkan ayaa intooda badan jirdil loo geystay 4 sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa la sheegay in xabsiyada dawladda Syria ay ku dhinteen 13,000 oo qof oo la jirdilay in ka badan 100 kamid ah dadkaasi ayaa la sheegay inay ahaayeen caruur aan qaangaarin warbixintan waxaa jimcihii shalay shaaciyay ururka la socda xuquuqul insaanka dalka Syria dadka la jirdilay ayaa la sheegay in marka hore askarta dawladda ay ka saxiixeen qoraal ay ku sheegayaan inay dileen kooxaha mucaaradku kadibna ay qaab jirdil ah u dileen guud ahaan dagaalka ka socda Syria ka badan 4 sano ayaa waxaa ku dhintay 220,000 oo qof dawladda Belgium ayaa sheegtay in kooxaha argagixisada loo sameyn doono xabsiyo gaar oo lagu xidhxidho wasaaradda cadaaladda ee dalka Belgium ayaa maanta oo sabtiya shaacisay in qaybo gaar ah lagu xidhi doono maxaabiista xagjirka muslimiinta ah ee duufsada dhalinyarada xabsiyada lagula xidho wasiirka cadaaladda ee dalka Belgium Master Kees Janis oo saaka waraysi siiyay qaar ka mid ah warbaahinta dalkaasi ayaa sheegay in marka ugu horeysa maxaabiista xagjirka ah isku xabsi lagu xidhi doono waana la kala fogeyn doonaa marka labaadna maxaabiista xagjirka ah oo isku daya inay duufsadaan
maxaabiista kale ee kula xidhan xabsiga waxaana kuwaasi lagu xidhi doona goobo gaar ah oo ka socan sanadihii lasoo dhaafay ayaa la sheegaya maxaabiis badan oo bidcadnimo u xidhnaa in intii ay xabsiyada ku jireen ay duufsadeen ragga xagjiriinta ah ee xabsiyada lagula xidho kuwaasi oo markii xabsiyada laga sii daayay ku biiray kooxda daacish ama ISIS ee ka dagaalanta dalalka Iraq iyo Syria jasiiradaha la isku yiraahdo Vanuatu oo waqooyiga kaga beegan dalka New Zealand ayaa lagu soo waramayaa in maalintii shalay ay ka dhaceen duufaan xoog badan duufaantan ayaana loogu magac daray Pam duufaantan oo loogu magac daray Pam ayaa shalay galinkii dambe gaadhay jasiiradaha la isku yiraahdo Vanuatu oo waqooyiga uga beegan dalka New Zealand duufaantan ayaa tii ugu xoog badnayd tan iyo sanadkii 2013 xilligaasi oo duufaantii la oran jiray hayin ay kumanaan qof ku dishay dalka Philippines dabaylaha duufaantan Pam ayaa la sheegay in xawaarahoodu gaarayaan 270 kiilomitir saacadiiba waxayna wataan roobab xoog leh daadad iyo waliba dhulka dhaqaaqaya hay'adaha qaramada midoobay ayaa ka walaacsan khasaaraha ka dhalan kara duufaantani maalinimada berito maalin axad ayaa lagu wadaa in gargaarka ugu horeeya loo diro jasiiradaasi marka ay degto duufaantani dowladda Masar ayaa doonaysa in ay dhisto magaalo caasimad ah oo cusub kadib markii ay buuxsantay caasimadda xilligan ee Qaahira qorshahan ayaa shalay lagu soo bandhigay shirka maalgashiga Masar oo ka furmay magaalada Sharm el-Sheikh wasiirka howlaha guud ee dalka Masar Mustafa ayaa sheegay in hadda magaalada Qaahira ay buuxsantay isla markaana ay dhisayaan caasimad cusub oo ay ku noolaan karaan 5 milyan oo qof caasimadda cusub ayaa la doonayaa in laga dhiso meel bariga uga beegan magaalada Qaahira ee hadda xarunta u ah Masar ayay ku nool yihiin 18 milyan oo qof waxayna mushkilad weyn ka taagan tahay adeega bulshada isgaarsiinta iyo waliba gaadiidka wadooyinka xidhay dowladda Masar ayaa doonaysa in dhismaha caasimadda ay ku dhamaystirto muddo 12 sano gudahood waxaana la sheegayaa in ay ku bixi doonto dhaqaale gaaraya 12 bilyan oo euro kadaha laga leeyahay dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in la siin doono dhulka ugu horeeya ee goobaha caasimadda cusub laga dhisayo ugu dambeyntii shirkii ka socday Sharm el-Sheikh ayay ka qayb galeen qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka oo ku jiro madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay war wixii naga soo gaadhay dalka iyo dibadiisaba habeenkan caawa warka waxaan noo socodsiinaya anigoo Cabdiraxmaan Cali Saciid xidiga bartaad kala socoteena waa telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV tan iyo kulantiisa dabawaariya bahda Bulsha TV isku duman waxaan ugu dhaafinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh